laascaanood waxaan in badan maqlayay looma tegi karo qof reer sheekh isxaaqna ma tegi karo waxaan odhan jiray anigu taas suurtagal maahan odhan jiray warila waa maamul dhane maxaabiista iyaga ka xidhan ma loo tago waa loo tagaabay dadku yidhahdaan haye lama booqan karo qof reer sheekh isxaaqa ma geli karo rag iyo dumar war waxaasi malaa wax jira ma haban dadka muddo sanad iyo samtiga way iga dhaadhac weyd way laascaanood daba markaa tagtay dadkan tegay laascaanood maxaad la kulantay waxaan la kulmay albeerka wanaagsan baan iska galo VIP ho go-aan baa markaa aniga aan wataa markaan tago laascaanood go-aan baan wataa inaan isqarin markaa laascaanood waxaan tagnay goor coleedi soo gaaban tahay markaa go-aan baan wataa inaanan albeerkiya waxba toona tegini yaa qof dee isqarinaya intaan noqon lahaa ilaa wax dhibaato deegaanka ku saabsan anigu ma wado bas hasna ma yihi waxna ma yihi anu nimankaas baan dee ujeedkeedu ahayd inaan soo eego ya dabeedna ina taliska biliiska isgeeyoba ayaa ii go-aan ahayd oo tiraado hawshaas ma socdaa de hawshaasaan socda halkaasaan kaba ninkaasaan sidaasaan ah go-aankaygay ahayd ba kaan jigjiga kaga tegay baa sa aha waay goor gaaban baan magaaladii galnay gaarigii noohada ha dadkii meelo halkee doonaysaa waxaan ku war waxaan doonayaa inaad igeyso meesha taliska biliiska ee guud ee qaabtumo halkuu ku yaalla halkaasi ku yaallaa buu yidhi inankii gaariga watay inankiibaa wuxuu yidhi gaari yaroo ku geeyaan kugu yeedhi halkaa khalad baa dhacay waay dee inan yaroo keer lasahoo aan weyneynba ayuunba u yeedha oo askariya maya wuxuu wataa bajaaj yar waay war ninkan qaado taliskii biliiska halkaa gee kee markaa waa isku wado taliska biliiska iyo meeshan uu geeyey fiid baa soo gelayo shadada waxay waan wataa waa kaasumuu yidhi waa kaa wadadii saa hormarisa taliska biliiskiya wuxuu soo arko meesha waa saldhigii dhexe laascaanood waay wareeshinkeyga halkaa ay ku khalkhalay halkaas horta khalkhal ka dhaca waay ila taliska guud nimankii madaxda abaa joogo waraysiga iyo waxa lagu farsamada iyo qaabilaadu dee way ka duwantay meel maxaabiisi ku jirto markaad ku dhacdo meeshii baan galay oo markiiba waan arkay inay saldhig tahay sidaadaan u tegeyba ilinkii waan gartay inkastaana qoraalkii akriyan haddana markiiba foomkii baan dee fahmay inaan meesha taliskii ahayn war maxaad ahayd oo ninka caynkaasaan oo saasoo maxaad u socotay hay waxaan u socday nimanka xidhan inaan soo booqdo oo yaa tahay adugu nin caynkaasaan hor reer sheekh saaqaa baryoonisa waay way yaabeen nin dhalinyarahoo diriis madow gashan iyo nin kaloo ag taagan ayaa haaya waxaan u malaya ninkaasi mala taliya ku-xigeenkii meesha iyo waxaas inuu ahaa ninkaas diriiska madow gashan wuu yaaba telefoon buu ku dhuftay nin caynkaasaa joogo waa nin caynkaasaa soo galo sidaasoo reer sheekh saaqaa habaryoonisa oo caynkaas hay ayaa soo galay saldhigii dhexe laascaanood waay caynkaasoo soo dir caynkaasoo askari caynkaasoo waxaasoo meeshii baa leegeeyo halkii o bgii baa leegeeyo shandadii baa halkan la dhigo dabeedna mid yaroo dhar calaa yimi kii o bga haystay baa magacaygii waxay qoray cadceeddii durbaba dhacday waad xidhantay buu yihi suunki iyo kabaa iyo waxaa isku xidho oo caynkaas waa sax baan ku wiri waay dabeed waad gashay waa lagu xidhay may he intaa marka uu yidhi ayaa inaan halkan taaganoo qolada ule shaqada ee saraakiisha habeenka ule shaqada 24 saacadood nimanka shaqada ule ka mid ah ayuunbaa garabkaa iga taabtay saasaan loo eegay awow waa beentood buu yidhi cidna ku xidhi mayso gogol baan kuu keenay halkan istaag gogol cusub ayaa lagu keenay ayuu ii keenay inankii barkimadii iyo cawdiyo cusub uu ii keenay caagad biyaah ayuu ii keenay meesha waxaa ka dhacayaa 40kii berbere wax ka kulul oo shaarkaagaasaad gashanaan kari kuleyl awgii caagad biyaah buu keenay caagadaana ilaashay igu yidho mobilkii way iga xareeyeen waay marka meesha lacag maahe boontiya wax lagu iibsadaa mobilada laga diranaya waay lacag iyo waxaas ma jiraan waay
taas aadkaa laga diranayaa iyo golis iyo waxaas waxaa nagu soo galay marqaan maxaa qaloocan baa nagu soo galay waay markuu ku yidhi waad xidhan tahay ninkii kalena uu ku yidhi ma xidhnidee gogol lagu keenay maxaa xigeyntaa inankii waxaan ku wiri war telefoonkii way iga xareeyeen wuxuu igu yidhi iska daa ha xaleysnaaday aniga cashir kuu keenayay waay cashadiina wuu ii keen waay halkii baana kulaylo de waa aad waa banaanna de waan jiiba ninkaagii u socday inuu maxaabiista soo booqdo maxbuus baa isku bedeshayba de xaasoonigan meeshii maxaabiista ku xidhneyd baa yimi hadda inta liska guudo kala tegi lahaa de ay waxaan u malaynaya inay ka bedelaan lahayd adigu halkii baan waxaa ii yeedhay markaa mid yaroo dharcada xaggeed ka timo sidee oo magacaygiibuu weydiiyo shargaan watay buu sidaa u eegayo saadkaaga sheeg buu yidhi saadkaygina waan u sheeg de waa isku mid magacaygu waa isku mid untee meeshu doonaba ha noqdee wuxuu igu yidhi maxaad u socotay waan u sheegayo adigu su-aala iminka aanan halkan doonay inaan ka sheego oo fara badan ayuu ku weydiiyey waa inaan yaroo dee dhalinyaro carruurtay dhalay maxaa ka mid a su-aaluu ku weydiiyey dee inay halkan aan la iman karin miyaad ogeyn buu ayaa ka mid ahayd moogi baan ku ori waay marka waxaa waagi baa beriyey adugu wuxuu iga qorqoriyo ord oo buu igu yidho mobilkiina wuu iga xareeyey oo meelba uu yidhi dhiga meeshayda baan seexday inteed ku jirtay 3 cisho 3 cisho yaa kaa soo daayey adigu 3 maalintii qolo madax dhaqameeda oo isla aanu dee aanu family nahay dadku isku wada xidhan yihiin ayaa ogaatay in lagu xidhay way ogaadeen waxa u sheegayba inankii gogasha ii keenay yaray sarkaalka ayaa ninkii xidhay ayaan maya ku weydiiyey ninkii koobaadaan weydiiyey buu yidhi way nala jooga xalayba oo inaan xidhan buu u socsocdaayo jiif caaqila jiif caaqilkii baa markaa wuu ila hadalsiiyeyba jiif caaqilka halkee magaalada waa jiif caaqilada dee magaalada degan caanka okay dabadna waa ninaan family nahay waay inkastoona halkaa ka filaynin dar ilaahay un baan u weydiiyey dabadna wuxuu saakii xalay buu inala joogo inaan askari buu shaqa hawshiisa u socdaa almuhiim waxaa dhacday jiif caaqilkii wuu yimeeyo isagoo odayaal kalena wata markaan isu sheego balbalsuiban buu yidho aad buu u yaabay markii aan telefoonkii uga sheegay halkeed soo marto yaa kula socday bigu yidho cidna ilimay socono dabadna intuu aamusay ayuu yidhi balbalsuibanna wuu yimo odayaal kalena way la socdeen dabadna arrin aada iyo aad ula yaabeen ay ula yaabeen ay noqotay ha maxaad isu soo biimaysad halkaa u soo martay intaasi de anigu biimaba moogi baan ku wari dembina maan gelin dembina cid kama gelin dhulkuna waa nabadgelyo dowlad deegaanka soomaalida dee waad ogto waa waxaa loo degdegan yahay dhistari sheekada kusoo dhowo xaaji yaa kusoo daayey waxay soo daayey oday dhaqameedyadii jiif caaqilkii baa oday dhaqameedyo kale u yeedhayoo dabeedna nimankii saraakiisha meesha haystay ayay u tageen maxay ku idhahdeen de waxay isku yidhahdeen anu garan maaye kolley hawshaydunbay dee soo xalinayeen niman badanoo dee askaroo meesha jooga dadku dee waxba ma kala aho waa iswarwareysanna marka qof waloo meesha soo galaba waa la xidhaa bay igu yidhahdeen waaye haddaba maadaama lagugu xidhay halkii ay maxaabiistu kuba xidhnaayeenba cidna ishaadu ma ku dhacday maxaabiistii reer somaliland ama way ka fogtayba meeshan aan joogo anugu meeshay ku xidhan yihiin aad bay uga fogtay isla saldhiga lagu xidhoon maan iyaguna ku xidhneen ma xidhna kala meel bay ku xidhan yihin meel ka aad bay uga fogtay waay marka niman dee waaye markii ciidamo uma tagtay waaye markii lagu soo daayey halkaad soo martay yaa ku soo qaaday goorfiida baanu ka baxnay saldhigii laascaanood jiif caaqilki adig saldhigii laascaanood waay dabeedna jiifkii baa mee gurigii geeyey guri isla magaaladuna isla magaaladuna waay gogol baa lay dhigay halkaygii baan seexday habeenkii casho halkaygu keenay wuxuu gu yidhi subaxnimadaan ku imanaya subaxnimadii buu yimi subaxnimadii buu igu soo kalay isagoo gaadhigiisii wata dabeedna way qaadayoo udheel baanu ka quraacnay istaanka jigjiga istaan bay ku yaa ah lasaano jigjiga dib ugu noqotay jigjigan dib ugu noqday habeennimadii buu gaadhigii baa ii soo kiriyey markaanu quraacnay istaanku buu ka soo horjeedaa udheelkaanu ka quraacnay dabeedna gaadhigii uu ii soo kireeyey
أيوم بان فولا يا مسافة فوق ويسوتشران سأل الله تسعة ضد سيسون marka haddii askarinay bay ilaalinayeen dadkan gaariga saarnaana isla deegaankaas bay wada ahaayeen dadka u socotay dadkii aan u socday ma si guud un bad family u ahaydeen ma Soomaaliland un bad ka soo wada jeedeen mise shakhsiyaad aad si dhow family u tiin aad u socotay baa shakhsiyaad si dhow aan family u nahay iyo shakhsiyaad aanu deen nimankii aanu soo wada baranay oo yaa ku jira waxa kale oo jooga oo habkan waxaan u sameeyay ee aan doonay inaan isu qariyo meesha waxa jooga niman kale oo asxaab ahayn oo saraakiil oo aan doonay marka deeisi taayaan maxaabista inaan iyagana ila u yeera oo qarkood naafiyiin oo dagaladan ku naafoobeen oo dadka marka la tuso bal dadku inuu dadkii wax soo hayahay